بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترامب أو فوسطة الريحة سعودية وعتاية متقنة وبتقال ما يعني وين السعودان. المهم أن أنت هذا الكيس أزدول تجدونا halkay ku dambeeyeen dadkii saarnaa markabkii Iiraan ee Mareykanka oo qabsaday akhbaar ka soo bixisay arintaas waan isla taagi doonaa. Lubnaan iyo Israa'iil ama Xisbullah Israa'iil oo isku bilaabeen waa arin cusub arintaasi waa degdeg taasna waan ka hadli doonaa. Witkoff iyo Kushner Jared Kushner oo u soo socda dhinaca iyo Washington dabcan arintan wax weyn ayaa ka jira macnaha wax baa khaldan wax baa si ah waa isla taagana taana aan ku bilownaa laakiin arintan The Mirror ee qortay oo ah Trump oo laga bloogay in uu helo ama ogaado nuclear-ka Mareykanka koodadkooda. The Mirror ayaa qortay waliba siday u qortay xataa si official ama maxaan ku dhahay si adig professional ama professional saas erigaasan rabaa yani shaashada caadiga ah ee Facebook oo ku siinayo oo kalarada kala duwan ina wax ku soo qorto macnaha wax weyn oo professional ma laakiin ujeedada waxay tahay akhbaarta ay degdeg tahay ama tusaale ahaan wax weyn ama si weyn in loo arko aad rabtid yani saas oo kala macnaha loo isticmaalaa marka waxay leeyihiin Trump blocked yani waxa laga block gareeyay inuu u helo galitaan ama uu ogaado koodadka nuclear-ka Mareykanka ama militariga Mareykanka why yani akhbaaraad waxa soo baxay ayaamahanba sheegaya yani iyo xataa dagaalkii Iiraan intuu socday waxa laga yaabaa inuu intuu caroodo oo wax sameeyo oo kale inuu nuclear kada isticmaalo oo kale iyo hadalada noocaas oo kale ah laakiin hadda arintaasi dabcan shakigii ay arintan si cadeynaysaa oo ah in ninkan la controli karin in xataa madaxda Mareykanka ee kala duwan meelaha kala duwan jooga baqdin ay ka baqayaan shartiisa ay maxalaha qaarkood ugu adkeynayaan taawata isla arintaasi dabcan waxaan ku xijinaynaa tan oo isla midii un ah macnaha wada hadalkii Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeyay ilaa hadda tan wax ka jira malaha Mareykankana wafdigooda ma aynan aadin Pakistan kuwa Iiraan way diidan yihiin laakiin arinta layaab kale waxay tahay wafdiga Mareykanka ee Jared Kushner iyo Witkoff ay hogaaminayaan waxay ahayd diyaaradooda at least maadaama ayaga ogolay inay baxaan laakiin waxa la yiri ama la sheegay yani diyaaradooda waxay ka soo baxday Miami waxayna u sii socotaa Washington si ay Trump ula kulmaan Mareykanka naftirkooda marka hadda waxay u eg tahay in xogaa si ay dib isugu dhigayaan oo kale dabcanna Iiraan ilaa hadartan aan fiidiga duubayo waxay taagan tahay no ma jirto wax la dhaho goodi iyo in macnaha la dhaho yani anaga idin ka sareyna ama isdhiibaysaan kada oo kadibna goodigaasi aan ku tagno wada hadal waxay taagan Iiraaniyiinta ma aqbalayno bal waxaan diyaar u nahay sida ay Mareykanka diyaar u yihiin inay dagaalamaan ayna dagaal diyaar u nahay markiska barashada quraanka kariimka ee Somali Islamic Quran Online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka adigoo adduunka halka doontid ka jooga daa kastoo aad tahay iyadoo ay ku bari doonaan macallimiin khibrad dheeraad ah u leh dhigista duruusta ay bixinayaan islaamka haddaba duruusta aanu bixino waxa kamid ah xifdinta quraanka barashada higaada barashada qurxinta farta barashada ducooyinka barashada luqadda carabiga iyo barashada luqadda af Soomaaliga aaladaha lagu kulmi doono waxa kamid ah aaladda casriga ee Zoom ama Google Meet waxaan bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iideyso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo asaaska inta islaamka inta dheer nagala soo xiriir numberka WhatsApp-ka ee shaashada idinka muuqda akademiyada alxikma ee litarbiya wa tacliim ayaa hab online ubadka qurbaha ku nool ugu baraysa barashada quraanka kariimka akhrinta qorista higaada luqadda carabiga iyo waliba barashada asaasiyaadka diiniga iyadoo sidoo kale dugsiga lagu qaadanayo barashada luqadda carabiga waa dugsiga ay ka cilmi qaadanayaan carruurta iyo dadka waaweyn oo goor kasta iyo goob kasta meel kastoo dunida aad kaga nooshahay aad kaga baran karayso moobilkaaga gacanta iyadoo ay ku dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh waalidiinta qurbaha ku nool waalid ka faa'iideysa fursadan qaaliga ah taasoo muddo aad u kooban aad ku baranaysaan barashada asaasiyaadka diinteena islaamka waxaa sidoo kale dadka loo dhigaya tafsiirka quraanka kariimka barashada axaadiista iyo waliba fiqiga islaamka ardayda la qaadanaya waa kuwa kooban bishan waxaa si toos ah u bilaabatay isdiiwaangelinta ee waalid haatan ka faa'iideysta akademiyada alxikma ee litarbiyati wa tacliim oo haatan ka wacayso taleefanada shaashada kaaga muuqda Mareykanka dabcan video-kan kore aan ku sheegnay Trump wuxuu taagan yahay gantaaladeena waa diyaar waan ururinay kali weer inaan qaadnaa na sugaya Iiraanintana sidaas oo kale ay taagan ayagana naftirkeena diyaarana macnaha waliba Iiraan hadalkii ugu dambeeyay ka soo baxayaan ina wafdi soo dirna muhiim ah maxay la saacadii oo wada hadalada ama xabajoojinta way dhowdahay way dhacaysaa marka maadaama ay dhacayso wada hadal aan isku mashquulin wafdigeena meesha ku go'doomo ma barabnaba hadeertan yani ayaan diyaar u nahay wax alla wixii dhici karaya taawata dhinaca kale Lubnaan aan imaan hal mar waxa Israa'iil ay duqeysay gudaha Lubnaan
waxaadna arkaysaa dabcan arrintaasi waxay ku tahay xadgudub xabajoojintii xisbullah iyo israa'iil ka dhaceysay ama dowladda Lubnaan ayadaa sheeganaysa inay wadahadalkan ama wadahadal ku keentay xabajoojinta Iiraan ayaana dhinaca kale shuruudaheeda oo kamid ahaa wadahadalkan ay Mareykanka la gashay in xisbullah laga joojiyo duqeynta iyo weerarka sida aad tabciidi doonta sheegato Iiraan hal lahaato wadahadalkaasi macnaha ha ku keento ama dowladda Lubnaan hal lahaato laakiin at least waxa dhaqan galay xabajoojintaasi hadda markii Israa'iil maxay sameysay in ay duqeysay dhowr goobood oo gudaha Lubnaan ah tayib xisbullah ayagana arrintan ay sameeyeen in ay sawaariikh ku tuureen dhinaca iyo koonfurta Lubnaan macnaha koonfurta Israa'iil oo la jeeda ama koonfurta dhulka Falastiin xoog looga haysto videoga lagu arkaya dabcan gantaaro ilaa 3 xaba ah oo sida u socda waa iska gantaalada yar yar waliba dabcan waxayna u badan tahay digniin gantaalada ah inay yihiin oo inaan ahayn gantaalo wax weyn gaarsiin kara Israa'iil sida akhbaaraadka ay sheegayaan dhinaca kale waxa akhbaar ka soo baxaysa dadkii saarnaa markabkii Iiraan ay lahayd ee Mareykanka uu qabsaday iyo Mareykanka oo taagan waxa mar dhow aan u diri doonaa gudaha Iiraan inay aadaan ama Iiraan aan u diri doonaa sida ayaa reportska ka soo baxay Mareykanka military-gooda leeyihiin arrintan Iiraaniintu waxay ku tilmaameen inay tahay arrin burcadbadeed dowladna inaynan sameeyeen maxaa yeelay dadkan markabkooda ay saarnaayeen markabka wuxuu u socday meeshii loogu talagalay meeshii macnaha Jayno ka yimid almuhim Mareykanka qabashada ay qabteen waxay dhahan chemical wadaaba baarid kadib waxa noo cadaaday konteynarada qaarkood ilaa 5,000 oo konteynara ku jirta konteynarada qaarkood chemical ku jirta marka baarid ay wali wadaan Mareykanka dadkii marka saarnaa ay adiga ka faarujiyeen waxayna u sii wadaan ama ay macnaha aadayaan dadkan sida ay leeyihiin dhinaca iyo Iiraan aflax quraan online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka adigoo adduunka halka doontid ka jooga daa kastoo aad tahay iyadoo ay ku bari doonaan macallimiin khibrad dheeraad ah u leh dhigista duruusta ay bixinayaan haddaba duruusta aanu bixino waxaa ka mid ah sida quraanka kariimka higaada qurxinta farta tajwiidka tafsiirka quraanka kariimka axaadiista iyo ducooyinka aaladaha lagu kulmi doono waxaa ka mid ah aaladda casriga ee Zoom ama Google Meet waxaan bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iidayso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo asaaska diinta islaamka intaa dheer nagala soo xidhiidh lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda أنا إيمانو وقدام بين ترامب وهي ورئيسي تلفون كبيحي. The Saudis are not. Are they taking it economically on the chin to the point where they want you to end this, or are they saying? وحوريها ويدينا يا سعوديين تا معناها فير كما كرايا يعني ملايه بليس دخل بربران وصعدة إن نجد جورج ترامب سياس ما يكوليه المسيه نورمال حالة ضغطها معناها. Right. I spoke to him yesterday. He wasn't asking for anything. He wants. They're fighting. You know, they're helping us. They're helping us on the strait. They're helping us all over. The ones that are. وحوليها وتاجيها and they're doing great. وفي عين حالة السعوديين وفي عين كو. I spoke to him yesterday. شو يقولون الله هذلي. They are fighting. معناها ولا دقالما ودقالما معناها. They are helping us. وين نعاونها يعني. دقالك نقول الجيران السعوديين تا. مركها سو وحو آدايا آد وسارايا. They're helping us all over. The ones that aren't helping are NATO. You know, NATO said to me, "No, we'll send somebody as soon as it's over." I said, "That's not really. You know, we don't need them." مركز. ما هو باهنين بعد. وعليه هاي السعودية مركو يتقال وين عاونا. عد أنا عاونا إنه إلا هدرتن معناها قاعد بيدحين لوها أما قاعد بيدحين هاي وناتو. وحبي يقول لهم كلها مركز دجال كورنا بدأ وح صادرنا مراكب كذا صادرنا. ما أنا أباهن. ما أباهنين به. ما أباهنين. ساسو كوي علينا. مركز ترامب وحوليه وعدينا عالم كلنا وشيء إيرانيين تنفترض وشيء جاية ناتو ويدي إن عاوسه أو إذن معناها دجال كينا نلسوا قشوا لكن عكس كذا السعودي أو درس كينا وإن عاونا دجال كينا ولا جيران they are fighting they are helping us وإن لا دجال لما يعني أو دجال كينا ولا جيران أرنتن محي كلاتها عادي السعودي إيران اسكو درايا قرط اسكو جرينايا أو هذا كان كليه نعم رنمية بين مية هالكا إسكاليك يعني إيرانيين تيو ودم كانوا يعني غير يوروب أمريكا وترامب هذا نوع كلا شيء وإسكر الديان معناها واحد هان مية وحكي جل منهن أنا مثلا كذا ساسوك لكن عربو سعودي وإمارات أم الخليج وروحوا دونو كشيء بين بدنا حتى الغياب يعني وحياله بارك خارج يسوق جيران شب ما خبري هذلاي وأمسيهين محا هذه السويدي معي كلها توائل وأمسيهين ومجابان سكستو وحكستو له شب أفكي خبطان معناها حبيجراتي ما هلا جوخ مرهان سيدو أركت أرنتاسي إن نعم حد خاصة أرنتان إيران أنتي سعوته وحاسوب عيبة بدن تصال أهان ترامب
wada hadalkii oo socda wafdigii wada hadalka oo haba yaraatee yani Pakistan ay markhaati ka tahay wax hal ah ama wax yani gaarin hadal ka meel isa dhigin ay Trump 20 tweet soo tuuraya oo Pakistan naftirka ay yaaban tahay Iiraanita ay yaaban yihiin ilaa waxaan been waa wafdigii Mareykanka naftirkooda qaar kamid ay leeyihiin anaga arintan macquul maahan ay ilaa ay Mareykanka madaxweyne ku-xigeenka JD Vance oo xanaaqay sida la yiri marka hadallo badan ayaa la leeyahay Trump oo been ah ayaa lagu qabtay Mareykanka khubradooda arinta cadeynaya video badan kaga hadalnay marka tan ma kula tahay fuusta oo riixid ama run ayaad u aragtaa yani nacamha Sacuudiyiinta dagaalkay ku jiraan inkastoo ayaga officially markay hadlayaan ay leeyihiin no anaga shaqo kuma leeyahay intaas anaga dagaalka kuma jirno balse aad u aragtaa intaasaan kusoo koobay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akademiyada alxikma ee litarbiya wa tacliim ayaa hab online ubadka qurbaha ku nool ugu baraysa barashada quraanka kariimka akhrinta qorista higaada luqada carabiga iyo waliba barashada asaasiyaadka diiniga iyadoo sidoo kale dugsiga lagu qaadanayo barashada luqada carabiga waa dugsiga ay ka cilmi qaadanayaan carruurta iyo dadka waaweyn oo goor kasta iyo goob kasta meel kastoo dunida aad kaga nooshahay aad kaga baran karayso moobilkaaga gacanta iyadoo ay ku dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh waalidiinta qurbaha ku nool waalid ka faa'iidaysa fursadan qaaliga ah taasoo muddo aad u kooban aad ku baranaysaan barashada asaasiyaadka diinteena islaamka waxaa sidoo kale dadka loo dhigaya tafsiirka quraanka كريمكا برشاد حديثة يولي بفقه إسلامك عبديدا القادرية وكوا كوبن بشان وحاسد توسو بلا متيستي وانجلينتي والد هاتن كفايديستي أكاديمية دا الحكمة اللي التربية والتعليم وهاتن كوعيسو تليفون هذا شاشة كاغا موغودا markiska barashada quraanka kariimka ee Somali Islamic Quran Online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka adigoo adduunka halka doontid ka jooga daa kastoo aad tahay iyadoo ay ku bari doonaan macallimiin khibrad dheeraad ah u leh dhigista duruusta ay bixinayaan islaamka haddaba duruusta aanu bixino waxaa kamid ah xifdinta quraanka barashada higaada barashada qurxinta farta barashada ducooyinka barashada luqadda carabiga iyo barashada luqadda af Soomaaliga aaladaha lagu kulmi doono waxaa kamid ah aaladda casriga ee Zoom ama Google Meet waxaan bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iideyso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo asaaska inta dheer nagala soo xidhiidh nambarka WhatsApp-ka ee shaashada idinka muuqda aflax quraan online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka adigoo adduunka halka doontid ka jooga daa kastoo aad tahay iyadoo ay ku bari doonaan macallimiin khibrad dheeraad ah u leh dhigista duruusta ay bixinayaan haddaba duruusta aanu bixino waxaa kamid ah sida quraanka kariimka higaada qurxinta farta tajwiidka tafsiirka quraanka kariimka axaadiista iyo ducooyinka aaladaha lagu kulmi doono waxaa kamid ah aaladda casriga ee Zoom ama Google Meet waxaan bishan qaadanaynaa arday kooban fadlan ka faa'iideyso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo asaaska diinta islaamka inta dheer nagala soo xidhiidh lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududaynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaangeli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta